bari Soomaaliya dhaqdhaqaaq yar sameeyay godka ka soo baxa isagoo attention iyo hadalhayn ka raba wuxuu sheegay in qabiilada Puntland qabiil kamid ah uu weerari rabo oo isagoo baxdul baahanta ay reerkiisa hubeeyay uu rabo inuu ka dhigis ku sameeyo maanta runtuu sheegay wuxuu yiri Soomaaliya siyaasi ilaahay ka baqayo baanta waligi uu soo geeyay isagu inuu ilaahay ka baqin iyo rasuulkiisa diin u haysanaysa jirin qodobkaas inta aan si qoto dheer ugu tiiqtiiqsan iyo shirarka odayaasha dhaqanka isimada uga socda gobolka bari iyo isaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqyadii amni uu ka waday gobolka bari waxa soo dhan intaan xaaladda guud ee Puntland si qoto dheer kugu dul istaagay kuwii lahaa fiisaha Soomaaliland waxa laga qaataa aeroboorka siyaasiga xisbiga ka ee mucaaradka Soomaaliland siyaasi Maxamuud Xaashi baa wuxuu u cadeeyay in buuq iyo qaylo uu ku raacay sida ciyaal weeradii inuu ku raacay isagoo ka yimi halkaasi cariga Ingiriiska Dubai lagu qabsaday oo qodobka si qoto dheer baa idinku dul istaagaya beenta 30 sano la dhoobay oo ummadda Soomaaliyeed ay u sheegayeen siyaasiyiinta qaarkood qodobkaas si qoto dheer inta aan kugu dul istaagin waxaan ku halkan hambaliyo wadraya dhamaan shacab weynaha waqooyi bari Soomaaliya markaad joogto Facebooka iyo markaad joogto TikToka iyo markaad tagto Twitterka meel walba waxa lagu hadlayaa golii wasiirada oo xukuumadda firdhiye halkan ka salaamaya madaxweynaha dawladda waqooyi bari Soomaaliya uu soo dhameystiray dabcan baarlamaanka la geenaya waxa hadda la isku diyaarinayaa qabanqaabadii iyo soo dhaweyntii madaxweyne Xaashi Maxamuud saddex diyaaradood oo kuwa daroniska ay wax duqeeya ilaahay hadda magaalada Laascaana soo gaaray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo amniga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sugaya ba dabcan iyaga maalmahan soo socda iyagana ku soo wajahan halkaas iyo xarunta caasimada waqooyi bari Soomaaliya ee Laascaano halkaas odayaasha dhaqanka beesha daarood isimada xorta ah oo xalaasha ah oo laftirkooda baabuurtooda shidaal ku shubtay oo u socda halkaas magaalada Laascaano wax garadka iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka beesha daarood iyo Soomaali weynba oo halkaas Laascaano ku wajahan Laascaano oo markale martigelinaysa madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya ilaa intii lagu dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya halkaas waxa ka cad inuu Xaashi Maxamuud yahay gees kafantiisa madaxa ku wata waa uu tagaya cali masaarkaas iyadoo hanjabaado loo diray leeyahay meesha dagaal baa ka dhacay Xasan oo tagina halkan waa shimbir waaqleys nin waxa dhageysanay ninka Macuusley dhax taagnaa iyo al-shabaab is dagaalaya baadaha washa keenaysa Laascaano rag ilaha xoreysteen xinjiro dhig la ku xoreysteen oo 500 nin u godgashay ilaa ay kunnin baad waxaad washa keenaysa barabuganda iyo khiyaali ra'iisul wasaaraha daran joogay saasana u cabaadis haddana madaxweynaha iyo xukuumadda dhameed ee dawladda federaalka ee Laascaano martigelin doonta qibladii siyaasadda ummadda Soomaaliyeed baa Laascaano noqotay hambaliyaan leeyahay wiil kasta iyo gabar kasta oo waqooyi bari Soomaaliya waayo waxaan dul istaagayaa waxa hadlay mulaaxa hadashay Araweelo hadashay wuxuu sheegay qodob hadda ka hor ay idin sheegay oo ahaa in jimcaale la soo weerari doono yaa xasuusto ila socday yaa xiisada garaadka ku xirnaa waa ku sheegay hadda ka hor in jimcaale la soo weerarayo ninkan ilbo hadaba Ciise Maxamuud ka arkay ciidamada hadda calmiska jooga oo uu taliyahoodii dilay qalyare oo uu taliyahoodii miinada ku dilay oo uu taliyahoodii mishinka ku dilay maalinta halka calmiska la gaarayay ciidanka meesha degan Ciise waa isqaybiyay labadoodii isimna waa shiray siyaasiyiintoodana waa la shiray waxa la Puntland oo dagaal lagu soo qaaday dhaqan uma leeyihiin inaanu ka harnay maxaan sameeynaa waxa la yiri ciidamada inta u badan dagaalka loo diro hal guuta laga dhigayo duufaan baa laga dhigay danab qaar kamid ah ilaa 600 oo nin Ciise ciidan kuma yar hadda ku sheegay Ciise Maxamuud ciidan kuma yar alxamdulillah rabbil caalamiin tolkay adigu jimcaale waxa magaalada looga tagay waxay ahayd hadii waqooyi bari Soomaaliya la soo weeraro inuu gurmad degdeg ku gaari karo uu yahay haddii gaalkacyo weerar lagu soo ekeeyeen inuu yahay nin gurmad ku gaari karo degdeg uu yahay qabiil Ciise Maxamuud haddaan nahayna inta yar aan haysan inaan dabka ku shubi karin oo wax la kala harno maanta uu la soo istaagay Soomaalidu ma baqdo ma xishooto ee way baqdaa bal qofka adoo bahdul bahanta ah Saciid Cabdullaahi Daniyo Soomaalida suka ay dhageysanaysa aniguna reer Xuseen baan adiguna bahdul bahanta tahay bal qofka ilaahay aan ka baqayn oo adiga ka baqdoon hal arko ko bal qofka ilaahay abuuray ka xishoon waayay oo adiga aan ka baqayn hal arko laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa isaga subxaanahu qaadir waa suka ay dhageysanaya labadayada Soomaalida suka ay dhageysanaysa in aad liglo hal dhuuno ka iska dhaafina xabad ku riday inaad ku jeediso
والله waxaan ku sheegaya oo billahi waxaan ku sheegaya oo tallahi waxaan ku sheegaya iska dhaaf wiil Ciise Maxamuud ee gabar Ciise Maxamuud oo meel laga saro leh inay si jirin shalayna cid u tanaasuleen adiga ma waxay u tanaasuleen daarood oo caasimad ku aaminay hadaad hubkooda iyo ciidankooda jimcaale aado anigoo dabca markaa Yacquub ahay oo Yacquub siyaad aan ahay oo Ciise Maxamuud maalin kasta gacmaha ay ka hayaan 3 sano anigu ay ugu dheertay laakiin tolkay wuxuu helayaa fursad uu dabaqyada intuu ku fuulo gabar kasta iyo wiil kasta oo Ciise Maxamuud in ciidanka xunka ayo qajaajufka ay isku soo aruursay oo bahad dhulbaantaha u badan bal waxa ku tusaya iyadoo daaqadaha laga tooganay bal inta ciidamo soo daabusho bal jimcaale weer hatta gondab Ciise Maxamuud inta soo hubayso oo aad hub soo dhiibto waxa tiraahdaa ciidankaas halka deganay Ciise Maxamuudka iyo weerar ku dhabal inuu ka yeelo haddaan tan ka dhacda Saciid Cabdullaahi Daniyo waray joog baa lagu yiri ilaahay baan anu ka baryay adin ka baryi maayo adiga baa dhulbaanta ta laakiin ilaahay baa waxaan ka baryay inuu ku solonsiiyo inaad ciidamada halka deganay Ciise Maxamuud in xabad ku rido kaas gabar buu ka soo baxay Ciise Maxamuud hadda kulaya kaas gabar buu ka soo baxay Ciise Maxamuud hadda hal xabo aad ku rido jimcaale ciidamada Ciise Maxamuud Soomaaliya isu ka dhageysanaysa reer aan anigu hiil uga baanaay ma jirto reer aan garab uga baanaay ma jiro laakiin wallahi waxa lagu murmi doonaa meeshaan maqasa mise meeshaan waa caasimad hantida taalana iskale xamarna 99kii maanta ka qurux badanta garowana waa ka qurux badnaan doonta ee hadda laba xiniyo loo ku careynay carab baan ku leeyahay ku celinay carab jimcaale oo Ciise Maxamuud ka dhigis ku sameey adoo Soomaali ana u sheegaya maanta ito wiilka la dhaho taliya Caloodi iyo wiilka la dhaho Maxamuud Khululle iyo wiilka la dhaho Qoolaali iyo Saciid Nuur Shire oo bahad dhulbaanta oo nin kasta uu hogaamiye 300 oo ciidan ilaa 400 oo ciidan aad adigu u sameysay oo dagaalkii la sacaano 1 milyan aad bahad dhulbaanta kaara uga bixisay bal hadaad anu Ciise Maxamuud aad hub ka dhigis ugu sameyn karto hal arko Soomaaliya iska ay baran doontaa hadaa nin nadiif ahaan lahayd iska dhaaf aniga reerayow kale ee Puntland baa hubkooda ku gacan gelin lahaa laakiin adoo reerkaaga hubeeyay oo ilaa kaara u gaday bal hadaad aniga hub ka dhigis ugu sameyn karto igu samee laakiin hadda ku sheegaya adoo intaas bahad dhulbaanta u sameeyay oo meel kasta agaasimo kasta ku qoray oo meel kasto dakhliga dhaqdhaqaaq la seediyada ku qoray oo xukuumadda naasi nikax ka dhigay oo hubkii Puntland jifidaada u gacan galiyay wallahi tan waa taa ku dhiman lahayd iska dhaaf aniga adigu markii la joogo ma jarteen dhaxdiis ama Ismaan Maxamuud hatta gudii bahad dhulbaanta taa lugta dhex lagu salaamo bal reerka kaaliita oo lugta dhex lagu salaamo Soomaali dhexdeeda waa la isbaran doonaa oo sharanshuurka iyo dulmanayaasha oo liita oo aan habar iska celin karin oo adigu hub ka dhigi karto bal hal arko Soomaali waa la sarki doonay bal Soomaali waa isbaran doontaay Puntland 7 sano jirtay waa la kaftami doonaay taariikh baa isqori doontay bal reerka hub ka dhigta adoo reerkaaga hubeeyay hal arko qodob sirrin baa ka sheegtay atiri Soomaaliya u baahan tahay madaxweyne ilaahay ka baqaya u baahan tahay waa run adigu ilaahay ka baqimaysid jaadka gada ilaahay ka baqimaysid hantidii shacabka qardhaa dhulka beertaas oo dhan ka samaysatay oo aad geel ku xareysatay iska dhaaf bilaadanka inta yastay reebutan u faatiri dadka reebutan oo hantidooda guratay baad hatta halka shaqo abuur ugu sameyn lahayd waxay iyagu shaqo abuur ka helaan aad ugu qaban lahayd hantidooda hatta gaarba u yeelo ila dictator baa tahay baad waxa maraysaa geel dhaqatid oo meel halkaas dhul 10 kilomitir baa leedahay Yacquub 10 kilomitir baa dhow 10 kuma ka badan yahay dhulkan 15 kilomitir buu dhan yahay isagaan askale waka been baa ka sheegay dabaqyaa ka dhisan geel buu ku xareystay caanaha Puntland isagaa gada tuwaakada halka la gashto naagtiisa gada jaadka isagaa gada waa runtii marka waa u baahan tahay Soomaaliya iyo Puntland ba hogaamiye ilaahay ka baqaya sida Guuleed Salax Barre ninka la dhaho Xasan Shire Abgaal Maxamuud Shido ilaahay rabbi xamaa beer ku dhiman siyaasiyiintaas waa u baahan tahay Puntland ilaahay rasuulkooda ma yaqaan saakin ilaahay rasuul ma yaqaan waxaan dursayaa gobolka bari ismada gobolka bari soo wadaan war saxaafadeed dabcan xilliga muuqaalka duubay inuu soo baxay oo laga yaabo wuxuu la shiray saraakiisha gobolka bari uu la shiray xooga Cali Salaan uu isku wareejiyay sheeka maalmahan gobolka bari ka jirta oo ah Lahore ku soo dilay weey baa ku sheegay inaad tahay argagixiso waxa lagu baadayaa ganacsatada Cali Salaan ka baa lagu baadayaa qodobkaas Cali Salaan ciidamada caayo Cali Salaan ki deegaanka deganaa waa Daacish waa maqlaysay Soomaa waa ninka ciidamadaas gobolka mudug baa laga keenay nimanka Maxamuud Salaan ka waxay aaminsan Cali Salaan ka in la baado oo la cabsi galiyo
علي سليمان دقالك ماشي كسر يجا وانت بدن بقى كتشوجا odayga taliyaha amniga ah waxa ka jooga ninka wiilka loo jirana Alhori waxa ka jooga ninka la dhaho Isa Yulix saad mehelan oo dhaqaal lama siiyo ninka duurka ku jiro Daacish taan waxa la Cabduqaadir Muumin waa علي سليمان ka khaladka askari haday Cabduqaadir Muumin waa hore hoosta gashan lahaayeen maanta waxaan kulama soo dhiiradeen ganacsatadooda ma dhaheen Lahore oo isagu diray baa ku sheegay sababtu dani waa Maxamuud Saleebaan weey Soomaali oo dhan iyo shacabka Puntland dhan waxay marxanti ka yihiin Lahore waa ninkii dilay Suldaan Koote waa ninkii shacabka Boosaaso yaryareeyay buu ahaa waka sawirkiisa qol maxbuus buu ahaa isaga soconay soo dhiibay agiisu ku yib waraysiga ma ay doombira daarad buu waran waraysigiisa soo daayay hal isbartay waraysiga uu sheegay laakiin anigu waxaan halka ka cadeynay in Maxamuud Saleebaan maadaama ay daneen adeerkay uu yahay in Cali Saleebaan ay ku khaldameen dagaalkaas Cabduqaadir Muumin inay dabada gashtaan been sababtoo Maxamuud Saleebaan ba kan Daacishta ah oo dambiyadii ila Lahore yaa ku shaqeysan jiray dariga ku shaqeysan jiray waa sababtu u dilay oo kiiska u daboolay way ana ilaahay horti ka cadeynay Soomaali hortana ka cadeynay Said Abdullaahi Dini inuu yahay Daacish waa sababtu Lahore u dilay oo kiiska u daboolay way taas marka waxa keentay ganacsatada baladu Cali Saleebaan lacag ka rabo muu yiraahdo nimayo dagaal ba ku jira dhaqaale isii idinkan cashuur dhaaf idin sameeynaya laakiin inta cunug yar oo burcad badeeda oo ahaan jiray oo rikaato ku haysto jirkiisa ka ganacsado Cali Saleebaan intuu soo ka haysto inuu yiraahdo waxaan sameynayaa waxa jira ganacsato Cali Saleebaan oo Daacish la shaqeyn jiray war ganacsatada Cali Saleebaan iyo kuwa daaroodka meesha degan oo dhawaad la baadi jiray xukuumadda dayacday nimanka Daacish taana airportka ka soo dageen hadda kuwii maxaabiista inta qabato baasaboorada siisay dib dalalka ka yimaadeen ugu celis marka Cali Saleebaan inay waag hore ka celiyaan bee dashishana ina faahiye dabada gashta saadba Maxamuud Saleebaan dabadu ku gashtay dadka waxa uu kala gar qaadaa loo baahan yahay ana cadeynay dani wallahi oo billahi oo tallahi boqol looga tagay waa Daacish waxaan kugu cadeynaya simple kaliya sababtu Lahore u dilay Lahore haduusan dani waxba isku ogeyn dilka ma fududeeyeen marka ma kharajeen muxuu dilanay muxuu ka ciirsanay in maxbuus soo dhiibay dadka reer Puntland kana ka galay oo dadka reer Puntland u shaabadeysnaa waa la wareysan lahaa kadibna waa la xukumi lahaa si caadi ah loo toogan lahaa waxa uu qarinay dani maxaad Maxamuud Saleebaan waxa ay qarinayaan maxaad Cali Saleebaan iyo dashish ku gaarka wariyaha doqonnimada idinka la idinku arag maaloo teen markii waaciye inta dashish ciidamadooda ay geeyeen haddu dash wuxuu leeyahay deegaanadii ka guuruulay deegaankiin caadiga ka guura maadaama Daacish atiin idinku waxa Puntland ka shaqeynay wariyaha reer kastow deegaankaaga difaaco bidahan biduu dhalan iska celi waxaan kugu soo gabagabeynaya Puntland saddex xukuumadood baa ka jira xukuumad waa mid hadda talada hayso oo qowsaariinta ah way reer kasta kii cabtayda ah iyo kii ugu liitay iyo kii Ilaahay rasuulba ka furtay laga soo magacaabay kuwa ilaa iyo hadda 5 sano banaanka u fadhiyo waxay sugayaan in lagu bedelo iyaguna waa xukuumad kale way wuxuu wax u difaacaya oo khaladaadka dani u qarinay in kan meesha amshaarka qaadanba oo dayacanba oo xafiiskiisa u shaqo tagi karinba oo wasaaradiisa korontada laga goostay in lagu bedelo budani u difaacaya kuwa kale waxa la yiraahdaa xildhibaanadii dani waagi hore diray ma moodaan inuu isagu diray daarood ma difaacaano baarlamaanka ku cadiban yihiino sida darteed rag adag baa loo baahan yahay kuwa haddana saa u caytama oo xildhibaano sugaya hadduu dani hal xildhibaan soo xiro hooyadii isaga ay dhalay waxa ay sheegayeen dhan waa been Puntland culimada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka haddaysan shirar degdeg u fariisan oo qofka nacaska ah kal xishoota ma leeyahay waa runtiisa isaga asla hadla kal baqdu leeyahay aan liska celin wallahi waxa dhii doontaan warhoy garaad ku wax badan bay dala hadla warhoy anigu wax badan baa jiritaankiina raba warhoy anigu dhuusa kantaroole maahay warhoy nin la gadan kara maahay warhoy ninka iska qabta warhoy bidaa biduu dhala iska qabta warhoy qofka ah xishoon iska qabta warhoy qofka meel isaga xir hadda intaas aan dardaaran idin siinay waxaan dul istaagayaa Soomaaliya ay dambeysay ma markaysa ku wareer Puntland waxay leeyihiin loo dhul baantay warsangali kama seersan leh fiisaha imaaraadka lagu tagaa fiisaha Soomaaliland lama xaqiri karo Soomaaliland Soomaaliya arkay aka siyaasiga ugu weynaa ee mucaaradka xisbiga ka iska lahaa ee habar jaco baa wuxuu cadeynayaa in aeroboortka uu ya Allah uga dhoofay in ya Allah uu ku raacay diyaaradda sababay Xasan Sheekh Maxamuud baa sababay landheere dhalay wallahi wiilkaas hawiyaha wiilka muduloodka wiilka hiraabka wiilkaas abgaalka wiilkaas wacayslaha waa landheere dhalay oo xataa gaarsi wiilka irir Soomaali qarannimada ummadda Soomaaliyeed soo ilaalay
fiisahaas qof kasta oo Soomaaliya inuu qaataa waa waajib oo baasaboor qurba ah haystaan anigu la hadlay $100 wiilka waa isla usub hada wasalaam hala bakhaylin hadii kala Soomaaliya aeroboorkaad ku baaba'aysaa banaankaad seexanaysaa kharash kala ku galaya diyaaradii waa ka tagtay khasab sandulle inaad waxa arkay marka kuwa huuba kuwa la huuba waa kuwa hadda xukunka helay weey ex yusraarti qolada habriyo list oo xukunka fadhida baa waxay ku maagayaan ninkan habar jeclo adaa hawada Soomaaliya wareejiyay dabcan dadka siyaasadda ku cusubay 2017 wixii ka dambeeyay iyo 19 20 ama qabiilkiisa doorbin ku fiirinayo siyaasadda qabiilkiisa oo haysta dabcan ما فهم كره حلقة هودا الصومالية يكسون قتل 16 أكتوبر بيسون قتل هودا الصومالية حاج محمود أنا السؤال عليه حتى قلب كيو إنكو قضي نينك كره بيو إنك أو مقدش كسود الشيء أو يري مقدش على الجبر عوانية أو مقدش على الوقف أكتف جرانية أنت أصلا حاج محمود بواه هي أدى ما مش هودا الصومالية لو ما قاعد إيكيو لده نينك كسود وريتشي هودا مركب كوالي ninkan wasiirka waaga adaa hawada gatay warinkan wasiir buu maxuu gadan karaa iska dhaaf isaga madaxweynaha hadda cirray Soomaaliland baan hawada Soomaaliya maamuli karin hawada adigu maxaad dhaantaa maamul goboleed baa tahay waqooyi bari ama Soomaaliland baa tahay maxaad dhaantaa Hirshabelle iyo waqooyi bari Soomaaliya iyo Puntland maxaad dhaantaa intaas oo dhan dawladda federaalka hoos tagaanay waxyaabaha sideedaba qarannimada ah bay hawadu kamid tahay inay dawladda federaalka maamusho marka beentii asodonka sano isugu sheekeynayeen bahada derbiga madaxa ku soo garaacaysa hadaa habar jecel u dhiibtaan beenta derbiga soo taabanaya habar jecel hadaa habar awal u dhiibtaan meeshan derbiga soo taabanay kuwaan hadda meeshan fadhiyana garcay wax u dhaqaajiyaan beebala yihiin iyaga xaarki ku dhig oo iyagii baa yaabano maalin kaste photoshop iyo waxaan jirin ka raadinaya haddana dadkii caayiyo siyaasiyiinta afka goosanaya cidii hadda in xaashigaas waxay ay ku dhigayaan Allah loo sheegta laakiin dabcan ninkan qabyaalad lama madax cadaan ninka ma nimanka SNMta iyo waa soo halganay qashinka aaminsan ma waxay madaxu la cadaaday waa Soomaaliyeednimo weey ninka aanu runtan ka sheega waana nin aqoon ahaan u dhisan mabda ahaan u dhisan waana ciyalka xaafadda waa nin wadanka ku koray oo yaqaan wacyi ka jira suu u leeyahay diyaarad baan buuq ku fuulay sida ciyaal weeradi waa ka daacad weey isaga laakiin waa leeyahay beentada ma diyaarad baan buuq lagu fuulaa uu ku koraya danu siyaasi baan ay u leeyahay waa doodayay waa wixii dhacsanay xaqiisu dhacsanay in iska aamusayo markii diyaaradda laga reebo iska malaayacnaya ma marka beenta la dhoodhoobay wakaas marxaanti ka ah ku yiri Puntland taana oo beenta idin sheegayna shacabkiina 30 sano beenta kuma weelinaysa qofka sideedaba inuu gudihiisa run u sheego way inta umad run u sheegin gudahaaga runta u sheeg Soomaali ma kala maarmayso wili abtigeedana Soomaali ma kala tagayso Soomaali meel kala aadamayso hatta ina xaashiga hada u dhibtaan qarannimada ummadda Soomaaliyeed baa ida horan xukuumaddan waa run iyada waxa laga rabaa inay la timaado qorshe cadeynaya in looga maarmo maadaama carabta ay aad ugu daba dhaqayaan ila carabka ugu daba dhaqaysa ay ka keen qorshe ad xogaa magaca Soomaaliland kor ugu qaadaso carabku kuma samayn karo meeshan kaadir dhalay oo siyaasi abqari xashiq maxamuud la dhaha jooga oo aqoon ahaan maadi ahaan u dhisan oo shaarbaha cid kasta saa dhulka ugu miiqay wallahi nin naxay inuu si joogin billaah marka naftina been ay u sheegin fiisayaashina qaata sin nadiifana isaga dhoof laakiin kuwa leh ha aniga fiisa leema weydiin Soomaaliland ma fiisa ka qaat